Bismillahirrahmanirrahiim. Wargeysyada Fana ee dalka Itoobiya ka soo baxa ayaa ka hadashay dhaqdhaqaaqyada aqoonsiga raadinta Jamhuuriyadda Somaliland ee dunida ay u xagal-taagayso. Wakaaladda wararka ee Somaliland ee Sona ayaana soo xigatay shabakadda Fana ee dowladda Itoobiya oo sheegtay in madaxweynaha Donald Trump uu doonayo inuu wax ka beddelo awoodaha Geeska Afrika oo uu aqoonsado Jamhuuriyadda Somaliland markii uu dhowaan la wareegay aqalka cad ee xogayihii hore ee gaashaandhigga ee Ingiriiska ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka UK Keith Wells ayaana warbaahinta u xaqiijiyay in Mareykanku uu daneynayo aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland. Adal Chies Sembonad oo falal ka geystay siyaasadda tilmaamay in Somaliland ay tahay taabagalka iyo xasilloonida iyo degenaanshaha ay kaga duwan tahay Soomaaliya oo halkaasi ay qas iyo colaad ka jirto. Adan Chies waxaa kale oo uu ku daray dood in Somaliland oo la ictiraafo ay waxtar yeelan doonto dhaqdhaqaaqyada militari ee Mareykanka ee dalalka reer galbeedka. Wargeyskan Fana waxa uu xuska ku daray